بسم الله ورسمة ديجيتال ميديا إيش مع الورسمة وين سلام دمانتي سودا واي إن ما أنت وحن كهذلينا حالة أما دقن لويقان سياسيين تأيي حول وضعنا ذا كسوتشي ده gobolka banaadir iyo bartamaha Soomaaliya siiba galmudug waxa la ogaaday markaanu soo galay dib u heshiisiin fara badan dabcan dukumeenti badan baa la saxiixayaa Soomaa kay gacanta u gasho ama xafiis ha joogo ama sii socdo dukumeenti lagu heshiiyay oo saxiixnaa wuxuu isku dayayaa inuu wax ka bedelo waa xaqiiq weeye arrintaas masalan haddaad la yaabtaan war dukumenta suurkan laga hadlayo maxaa loo bedelay muxuu u qariban yahay muxuu isaga hor imaanayaa wax kale ma aha waa dadkii ka shaqaynayay iyo siyaasiyiin wax gashaday oo wax ka bedelay wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn gacantaba hadday u gasho computer waxbay ka bedelayaan forgery bay sameynayaan yacni waxaa ka mid ah baasaboorka soomaalida dowlad federaal soomaaliya soo maaha markii la soo saarayay geedi iyo rag la mid ah ayay gacanta u gashay maxaa laga dhigay baasaboorka magaciisii Somali Republic oo hadda in la bedelo oo baasaboorka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in lagu qoro maxay qaadanaysaa way idin la tahay ma rabaan yaa saasay rabaan qishkaasay rabaan xasan sheekh maxamuud waxaad moodaa awooddii ra'iisul wasaaraha iyo tii madaxweynahaba inuu isku qaatay sababtu waa maxay wuxuu cudurdaar ka dhiganayaa dastuurka Soomaalida ayaan dhammaystirnayn iska hor imaanaya aan la fahmi karin marka ilaa la saxo anaa wax walba run ahaantii saa wey laakiin qisaan idinka sheekaynaya wayadii shirkii qaahiro burburay la isugu tegay shirkii markii Cabdullaahi Yuusuf iyo Gabyo ka soo baxeen oo dhanka Addis Ababa soo aadeen dee qoladii ku hadhay meesha oo kooxdayda ahay National Salvation Council Hussein Caydiid iyo groupkaasay raacaan Cali Mahdi iyo waa garanaysa qoladaasu maadaama rag waaweyn ay ka baxeen meeshii shirkii waa fashilay laakiin waxbay soo malmaleegeenoo waxay yidhaahdeen aynu tagno meesha la yidhaahdo Baydhabo aan ka bilowno waa sheekada dadka loo sheegay laakiin run ahaantii waxay ahayd qoladayadii National Salvation Council oo caasiyoobay alaabtooda waxay taallaa weli Addis Ababa hoteelladii bay yaalleen intay yimaadaan alaabta qaataan inay xamar aadaan xataa Baydhabaday ku heshiiyeen ma aadayaan waxaan u samaynay intii National Salvation ka maqnayd intii maqnayd oo dibadaha adduunka caasimadaha adduunka jiray ayaanu tigidyo u diray annagoo Etoobiyaanka isticmaalayna Addis Ababa la soo geliyay kuwaanu markay yimaadeen oo rabeen boorsooyinkooda inay qaateen waxaa la yidhi wait a minute shir baa jira meesha golihii National Salvation Council shirkaas ragga iyagii joogay Ethiopia oo shirka soo qaadacay iyo raggii la shaqaynayay ayaa qalqaaliyey marka soo in document la diyaariyay Soomaa oo warmurtiyeed soo baxo shirkii baa la yeeshay warmurtiyeed baa soo baxayay dee markaas waxa weeye waxa la maaragtay la cambaaranayaa shirkii qaahira waxay samaysay waxaynkaas warqadii waa diyaar subaxdii aroor
berri oo kale aroortii ayaa loo ballasay safaaradihii Addis Ababa joogoo dhan in loo yeero oo shir jaraa'id la qabto iyo magaciisa ilaa war ma haynee habeenkii bay u dhaceen xafiiskii National Salvation Council qolyahaasan ka warramayay oo warqaddii inta ku qaateen yacni cajalad ku qaateen ayay waxay la tageen safaaradda masaarida ee Addis Ababa warqaddii baa la soo sameeyey sidoodii baa loo soo dhigay waa la soo qaaday computerkii baa lagu celiyey maxay filayaan in berri warqaddaa masaarida ay isla soo diyaariyeen laga akhriyo meesha annaguna waa garanay dabcan waxaana waa soo daabaceen oo meeshay taalla waxay rabaan inta lasoo qaaday dadka loo qaybiyo waraaqihii baanu habeenkii ka qaadnay meesha tay soo bedeleen tii kale aan koobi haysanay baanu meesha ka saaray tay soo bedeleen warqaddii dhabta ahayd ayaa subaxdii la keenay shirki nin la oran jiray Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo isagoo ah reer maaragtay Baraawe iyo maaragtay marka iyo wuxuu yahay dadkaas biyamaalka u dhashay weeye dirta koonfureed macnaha oo ah xogayaha arrimaha dibadda National Salvation Council ayaa la akhri warqaddii safaaradihii oo dhan waa fadhiyaan tii Maraykanka Ingiriiska يعني European Union waxoo dhan waa fadhiyaan xataa masaaridii waa fadhiday carabti warqaddii uu akhriyay dhexda markuu marinayo ayuu wuxuu ogaaday warqaddii lagu soo diyaaray safaaradda Masar inaysan ahayn Cabdullaahi Yuusuf oo koonahaas fadhiya oo ragga la guddoomiyaalka ka mid ah yaa yiri Cabdullaahi Sheekhow warqadda akhri oo dhammaystir warqaddii wuu dhammaystiray warqaddii dhexda intuu kaga jiray yaa safiirkii masaarida oo gadaal safiirada fadhiya ayaa gacanta taagay maxay tahay waxaan waxaa la yidhi adiga maxaa kaaga jira warqadda tan Soomaalida maxaa kaaga jira maxaa la kamashkamash leeda uniyo fariiso sidaas ayay ku dhacday marka nimanku waa niman qishmiirana wax walba waa bedelayaan baasaboorkii way bedeleen dastuurkii way bedelayaan awood yani si kale ay u fasirayaan nin aan maaragtay ninkii madaxweynaha ahaa baa wuxuu rabaa prime minister iyo madaxweyne waa inuu isku noqdo awooddii oo dhan loo wareegaya wuxuu leeyahay dastuurkaa khaldan oo hadduu dastuurka khaldan yahay maa la saxo mas xukunka waa loo dhayahay waa la qaybsaday oo waa ku yaallaa prime ministerka meeya roolkii dowrkii prime ministerka meeya waxaasaanu aragnay waa arrin la yaab la waa idinla wadaagayay taariikhdaas aad iyo aad baa u mahadsantihi